hambaliyada jacaylkooda waa lamanaha qarniga alla hayay boqorada isteelka isoo kala hay kala iyo xalay xaflad ku qabsay magaalada caasimadda ee Muqdisho xafladan oo si weyn hay u soo agaasintay amba hay u soo qabanqaabisay gabadha caanka ah ee boqorada isteelka iyo asxaabteeda ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay haykal oo xidhan calankii Somaliland taasi oo hay dad badani la yaabeen amba hay dhag ay far hay ka dhacday halkaas haykal ayaa tagay maalintii darad ahayd magaalada Muqdisho isagoo sidii ku soo dhaweeyaan asxaabta in boqorada isteelka iyo soo kale iyada oo ah jacaylkiisa koowaad ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay halkaasi garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho aadan Cabdulle Cismaan haddaba halkaa kadib markii lagu soo dhaweeyay waxa halkaa soo dhaweyntiisa kadib loo galbiyay dhinaca iyo hotel ku yaala magaalada Muqdisho halkaasi oo la dejiyay soo kale xaflad kala kacsan cali loogu qabtay oo ka soo qayb galeen dumar iyo sidoo kale dad badan oo baraha bulshada caanka ah wiilal iyo gabdhaba leh halkaasi oo hay xafladada iyaduna toortada jartay oo afka u jartay oo calaamadii jacaylkana gacanta ugu xidhay arrintan ayay dad badan ugu hambaliyay qaasatan dadka ka soo jeeda Soomaaliland oo isagoo calankii xidhan hay dusha u saareen fiyooro guduudan iyo sidoo kale kalgacal taasi ay ku soo dhaweyn eriye ay kamid tahay soo dhawow wiilkan haykal amba wiilka noo ah seediga amba han inanteeda ku darsanay eriye noocaas oo kale u eg anaguna waxaanu leenahay hambalyo noqdo reerkii lagu nastay lagu nagaado ubad khayr qaba iyo awlad wanaagsan kala hela haddaba saaxiibayaal jacaylkan oo markii soo aasmay ahayd markay boqorta isteelka imatay magaalada Hargeysa isagoo si dhab loo aqoon amba si weyn loo aqoonin wiilkan isagoo sida weyn imika barta TikTok caanka uga noqday ee haykala ayay markii hay tagtay boqorada isteelka Hargeysa kadibna hay halka kula kulantay ayay si weyn u soo shax saartay iyadoo oo sabab u ahayd ayaa la leeyahay inay Facebook maxalanoolada TikTok-giisa dhahday haw kala kaco amba haw aan noqdaba wiilkani taasi oo markay muddo la joogtay ee soo dhaweyn fiican oo sameysay asxaabadan ay ka mid ahaydna ay ka heshay joogiisa iyo jabaadkiisa iyo quruxdiisa iyo qiimihiisa dhammaan ba ay barkii ay la dhacday ayay u sheegtay inay tahay qofka ay jeceshahay ama qofkii ay ku riyoon jirtay uu yahay kadibna ay rabto inay nolosheeda ugu dambeynaa uga daba yimaado magaalada Muqdisho halkaasi oo hay xafladooda ku qabsadaan amba hay xafladda jacaylkooda ku qabsadaan meesha dambe ee jacaylkooda lagu dhisi doona arooskooda amba jacaylkooda ugu dambeeya lagu gowrici doonana waxay noqon doontaa ay dadku leeyihiin magaalada Istanbul ee caasimadda dalka Turkiga waa caasimadda ugu weyn amba caasimadda ganacsiga ee dalka Turkiga halkaas oo hay dhalinyaro badan ba imika ka bilaabeen qabanqaabada arooskooda iyo halkii lagu soo dhaweyn lahaa haykal iyo boqorta isteelka oo socdo oo lamaana ah taas ayay dad badan aaminsan yihiin inay tahay halka aroosku ka dhici doono balse Somaliland khaasatan dadka caanka ah dhalinyarada amba asxaabtiisa ayaa si weyn ugu hambaliyay iyagoo ku ammaanay reer Muqdisho sida isagoo calankiisa tahay u soo dhaweeyeen oo calankii Somaliland watahay dusha soo dhaweyn u saareen iyagoo oo ognahay in qofka calanka Soomaaliya la yimaado Hargeysa oo xabsi yahay amba hay boqorada isteelka hayna wax calankii Soomaaliya kor u qaaday ilaa inta Hargeysa imatay iyadoo bedelkeeda qaadatay calanka Somaliland waxaa la isweydiinaya dadka reer Muqdisho ma inay gobsan yihiin mise amba macnaha dadka reer Hargeysa ma ka gobsan yihiin misana waxa calanka Soomaaliya waxay calankan u sameynayaan awshan inay Soomaaliya dib isugu soo laabato oo midnimada ayaa halka ka jirta si kastaba ha saaxiibayinku siyaasadda xidlan galamayna ee waxaan u hambalyeynaa